waxaa maanta farxad iyo sharaf noo ah inaan maanta magaalada Beledweyne ku suganahay isla markaana aan maanta guddoonsiinayo banooniyaashan xaafadaha kala duwan ee magaalada Beledweyne degmooyinka ay ka mid yihiin Matabaan Maxaas Jalalaqsi Buulo Burte ceel cali buq ceel cali farlibaax waxaan rajeynayaa insha Allah in dadka dhalinyarada gobolka Hiiraan waxaan ugu talagalay runtii dhalinyarada gobolka Hiiraan inay isdhexgal muujiyaan wanaagga ka shaqeeyaan horumarkoodana maxaan ku dhahay higsadaan maanta qof kasta oo bini'aadana wuxuu xaq u leeyahay inuu sharaf iyo karaamo ku noolaado dhalinyarada gobolka Hiiraan waxay xaq u leeyihiin inay sharaf ku noolaadaan waxay xaq u leeyihiin inay karaamo ku noolaadaan inay abuuraan isdhexgal jawigan ka duwan dhalinyarada waxaan kula dardaarmayaa marka aniga waxaan intaas u soo marayay banooniyaashan tirada badan hay'adaha UN-ka rabaa inaan iyaga naftirkooda uga mahadceliyo ee na taageeray inayna taageeraan waxaan isleeyahay waxaan mutaysanay waana uga mahadcelinaynaa xaqiiqdii taageerida buuxda ee na garab istaagsan yihiin annagana waan ka soo dhalaalin doonaa midnimadeena iyo waan xoojin doonaa iyo horumarka aan ka samaynayno cid kasta oo na taageertayna waa uga mahadcelinaynaa dhalinyarada ka soo qayb gashay munaasabadan quruxda badanna waxaan leenahay waan idinka mahadcelinaa xaqiiqdii waana waajib ina saaran inaan ka wada shaqeyno horumarka dhalinyarada iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka Hiiraan Matabaan ugu horeyso waxaan rabnaa inaan Matabaan ugu horeyso Matabaan waxaan rabaa inaan guddoonsiyo banooniyaashan hortiina yaalo aad arkaysaan degmo kastana intaana yeelan doontaa inkastoo Beledweyne ay maxaan ku ka cayilaan doonto laakiin ma rabo inaan si kasii hor dhaco degmo kasta halahaana yeelan doontaa waxaan rabnaa inay ku sameeyaan inay ku abuuraan isdhexgal inay ka sameeyaan ciyaaro waxaan ka kaalmeyn doonaa insha Allah safarkayga dambo waxaan ka kaalmeyn doonaa kubada kaleente qalab isboorti koobab iyo bilado insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waana noo dalban yihiin waa ballan qaadan yihiin safarkayga xigana kan ka xigana insha Allah waxaan rajeynayaa inaan sameyn doono tan mid ka balaaran munaasabad aad u weyn aadaan uga mahadcelinayaa xaqiiqdii Matabaan dhalinyarada gobolka Hiiraan isla markaan wuxuu ka mid yahay munaasabadan dhalinyarada lagu casuuntay wuxuu wakiil ka yahay degmada Maxaas oo aan raba iyada naftirkeedana inaan guddoonsiyo banooniyo gaar ahaan wuxuu wakiil ka yahay Cali Naxar oo ka mid ah maamulka degmada Maxaas Cali Naxar nasiib darro maanta uu naga soo gaari waayay laakiin insha Allah waxaan rajeynayaa Xasan oo wakiilka inaan maanta ku wareejiyo igana banooniyaashii degmada Jalalaqsi waxa wakiilka ah Xaaji oo ah laacib hore oo u dheeli jiray ciyaartooyda gobolka gaar ahaan Xaaji waa reeb Bundaweyn laakiin maanta wuxuu wakiil ka yahay uu guddoomaya uu qaadaya degmada Jalalaqsi runtii waxaan rajeynayaa degmada Jalalaqsi iyo degmooyinka gobolka Hiiraan degmooyinkii ay daashadeen dagaaladay ka mid yihiin dhalinyaradeedu waxaan jeclahay inaad isdhexgal u abuurtaan insha Allah maasanid reeb Buulo Burte waaye لاعب دقوة واي وكم يدي هاي جوديجا سبورتيجا أولمبيكا gobolka iyo waliba xiriirka waxaan wuxuu ka mid yahay rugcada waaye dhalinyaradii sportiga gobolka uu ka mid ahaa in badan aan wada shaqeynay maanta wuxuu ku sugan yahay magaalada Beledweyne wuxuu nasiib u helay inuu u gudoomo degmadii uu ka soo jeeday oo uu ciyaarayay oo ka mid ahaa dhalinyaradooda banooniyaasha aan dhiibeeno asagana runtii wuxuu rabaa inuu qudbeeyo ma waa idin salaam dhalinyarada muna waa gabar u dhalatay gobolka jecel isbedel badan in dhalinyarada sameeyaan isku duubnadaan waxaan dhalinyarada ugu digayaa macni dad badan oo waxa iska jiro ururka macni jecel inay afduubtaan hal isku dayo in sidiisaba isbedel inuu yimaado isbedel in laga shaqeeyo dad khaas ah waxa jiro in ururada magacyadooda qaataan kadib ayaga tartut mar walba jecel in ayaga bas laga dambeeyo qof magaalada u dhashay inuu mar walba qofka inuu ku tagnado laga fiican yahay hal isku dayo in fikir isbedel badan in la keeno waxaan isku dayaynaa dhamaan in mar dhow inaan shir qabanno oo isbedel ku yimaado haduu ilaahay yiraahdo ururka dhalinyarada oo dhamaantiin oo yimaad celinaa waxaan rabnaa haddii inuu u gudoomo farlibaax oo ah deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan dhalinyaradeedana aan rabo inay u gudoomo haddii waa wakiil isla markaana ka mid ah dhalinyarada gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne ku sugan haddii wuxuu u gudoomayaa farlibaax waxaan rabnaa inuu gaarsiiyo farlibaax dhalinyaradeeda insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo way maasan tahay muna waa soo dhaweynayaa barnaamijkan iyo waliba sida ay u soo agaasintay
anna waxaan wakiil u ahay oo aan rabaa inaan gaarsiiyo kubadahan ururka uu nagu daaqay deegaanka Firlibaax oo aan anigu wakiil u ahay waana soo dhaweynaya waxaana jeclahay in laga wada shaqeeyo midnimada dhalinyarada iyo waliba horumarka gobolka Hiiraan dhamaanteen maxamed wuxuu ka mid yahay dhalinyarada deegaanka isla markaana maanta wuxuu wakiil oga yahay Ceel Cali inna waxaan rabnaa inaan guddoonsiino banooniyaal si la mid ah degmooyinka kaleente ee gobolka aan guddoonsiineen waxaan rabnaa inuu gaarsiiyo dhalinyaradii deegaankaas waxaan rabnaa inay abuuraan isdhexgal dhexdooda ah si loo helo jawi nabadeed iyo horumar soo dhawow maxamed ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan ahna gudoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan ayaa maanta waxaa farxad inoo ah kulankan aan halkan ku qabanay oo gobolka Hiiraan degmooyinka hoostagan banooniyaal ku siinay iyo xaafadda Beledweyne xaafadihiisa afartiisa xaafadood kala duwan marka insha Allah waxaan abuureynaa in qaabkii la isu dhaxgalin lahaa isboortiga wuxuu ka mid yahay isdhaxgalka dhalinyarada ayuu ka mid yahay wuxuu ka mid yahay burburinta colaadaha uu ka mid yahay marka insha Allah gudoomiyahana waa uu dadaalay marka wixii hadda ka dambeeyna waan dadaali doonaa insha Allah marka waxaan ku soo gabagabeynayaa in macnaha nabadda lagu dadaalo qaybaha isaystana ay walaaloobaan dadka bismillaahir rahmaanir rahiim aniga ku hadlayo magacayga iyo magaca ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan oo aniga gudoomiyaha u ahay iyo waliba ururada dhalinyarada midoobay ee Soomaaliya gaar ahaan ururka la yiraahdo Somali Youth Cluster oo aniga gudoomiyaha u ahay waxaan rabaa inaan maanta uga mahadceliyo runtii juhdiga faraha badnayd iyo dadaalkii ay geliyeen in dhalinyarada gobolka Hiiraan ay isgarab taagaan magaalada Beledweyne aan ku sugannahay waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno horumar Somali Youth Cluster waxaan leeyahay waxay mirahoodu soo gaaray magaalada Beledweyne ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan wuxuu ka mid yahay Somali Youth Cluster oo anigu gudoomiyaha u ahay marka waxaan rabnaa inaan abuurno jawi nabadeed Hiiraan waa meel xuduud u ah wadanka gaar ahaan gobolada dhexe waxaan rabnaa marka inaan sameeyno Hiiraan sidii ahaan jirtay magaalada Beledweyne iyo gobolka Hiiraan magaalo loo soo caana doonan jiray nabad loo soo aadi jiray lagu nasan jiray inahayd waxaan rabnaa inay colaadu ka tanaasulaan horumar sameeyaan maalmahan colaada ku soo noqnoqoto waxaan Ilaahay ka baryaynaa oo rabnaa inaan dhalinyaradeena ka shaqeyno qaabkii colaada loo afjari lahaa oo midnimada iyo horumarka looga shaqeyn lahaa marka waxaan rabnaa inaan isu imaadtankeennaan weyna waxaan ka rajeynaynaa isku imaatan kan ka weynna inaan sameyno oo isdhex marno oon abuurno banaanbaxyo lagu taageerayo nabadda